joogay muddo 2 maalmooda 2 wafdi oo ka kala kooban dowladda Jamhuuriyadda Somaliland iyo dowladda Federaalka Soomaaliya shirar ay halkan maxaan ku dhahday ku laqayn bisha 28 iyo maanta bisha 29 tahay shirarkaas caawa way soo gabagaboobeen waxayna ku soo gabagaboobeen in heshiis laga gaaray heshiiskaas oo ah labada dowladood ilaa muddo dheer oo 2012 shirar baa soo socday wadahadalo fara badan baa la galay shirarkaas markaa wahamiyadooda iyo ujeedadooda waxay in dib loo shirarkii muddada soo socday xaaladaha imika maanta jirana maxaan ku dhahday lagu daray in hore loo socdo wixii heshiisyahay hore loo jiray iyo kuwii dambe imika la gaadhina in howlahooda la fuliyo waxa aad guddi farsamo oo laba wasaaradii la socday madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo wasiiradii la socday madaxweyne Muuse Biixi iyo xubno kale oo la taliyayaashoodii labada xubnood ee loo magacaabay maxaan ku dhahday inay ka shaqeeyeen Somaliland iyo Soomaaliya ee midna madaxweyne Muuse Biixi uu magacaabay adna aadan iyo ergeyga uu magacaabay Cabdikariin magacaabay madaxweynaha Soomaaliya ayaa iyaguna wehelinayay shirkaas macaawan la saxeexay saxaafadana waa laga soo daayay kole isagoo tafatirana saxaafadda waa lala socodsiinayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo shirkan martigeliyay madaxweynayaashu intay wada hadlayeen goobjoog ka ahaan wasiirada labada dhinac la socdana maxaan ku dhahday ku qaabilay qasrigiisa caawana gurigiisa maxaan ku dhahday qasriga madaxtooyada ayaa lagu soo gabagabeeyay lagu saxeexay goobjoog buu ku ahaan wufuudii ka socotay Soomaaliya ee madaxweyne xasan shaqal socotayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa heshiiska waxa saxeexay labada wasiir daaqiliye imikana halkan wada joogno wasiir daaqiliyana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyo wafdigiisii kale waxay tilmaamaysaa harumar iyo maxaan ku dhahday iskaashi laba dalo jaara oo damar walba hawla ay ka dhaxayaan inay mar walbana danahoodana ka wada hadlaan wixii horumarka iyo nabadgelyada ku saabsan ay ka wada heshiiyaan aad iyo aad baa mahadsantiin